seexatay inantaas halkaa shandadaa ku jirta ciyaalkii kale way ka tegay way gamaaday wataa birtii yarayd oo gaadhigu jeeray ee ilmaha yarna hoos jiiftay birtaa kale halkaa taalaana waxay u qabatay inay marto oo mirteen dhaawac u geysataan ilmaha yaraa taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland gaashaale Maxamed Ciga Cidheere ayaa bulshada la wadaagay dhacdo ku cusub indhaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka in magaalada Hargeysa shalay ay ka dhacday dhacdo naadir ah waxa uu sheegay in caruur yar oo shandad ku ciyaareysay mid kamid ah caruurta yar oo 3 sano jir ay ku dhex gamaaday kadibna gaari noohi uu soo maray wadadii shandadu taalay hase yeeshee uu jiray darawalkii gaariga wada shandadaasi inkastoo inantii yar 3 jirka ahayd uu sheegay taliyuhu inay dhaawac tahay oo lagu dabaybay mid kamid ah isbitaalada Soomaaliland ku yaala gaar ahaan magaalada Hargeysa hase yeeshee taliyuhu waxa uu uga digayaa darawaliinta inay ka digtoonaadaan wax kasto wado ay ku arkaan isla markaana aanay jirin taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland gaashaale Maxamed Ciga Cidheere oo ka hadlaya amuurtaasi waxa uu yiri ana waxaan doonaynaa dadweynaha in la wadaagno kullay dhacdooyinka cusub ee mar kasta dhacaya in aan u sheegno digniinta ka siino 27kii bisha 3dii galabnimo gaari nooha ayaa jiiray inan 3 jir ah inantaasi meel ciyaalku halka la yiraahdo meesha la yiraahdo sheedaha ay ku ciyaarayeen marka ay ciyaarayeen waxa la jooga ciyaal kale waxa dhacday gaariga markuu soo mariyay meesha ciyaalkii way seexatay inantaas halka shandadaa ku jirta ciyaalkii kale way ka tegay way gamaaday runtii ninka la yiraahdo Cabdilaahi Cabdi Xasan oo muxuu ahaayay dowladdu waxa halkan ku qoran waa 27 jir waa nin weyn kama uu joogsan shandadaas wax ku jira ma ogaan wadada kama beydin wuxuu jira shandadii gaariga taayirka markuu dhacay ilmaha yaraa way carabtay way qaylisay dhaawac baa soo gaaray kooymay ku jirtaa dhakhtarka la yiraahdo amal garan ayay taala dadweynaha iyo wariyaba way arki karaan runtii halkaas ay taala waxaan uga digaynaa dadweynaha runtii markuu darawal xumo horay baan u sheegnay nuxuu doonay ahaado inanteerna waxa la yiraahdaa Raxma Aamin Xasan waa 3 jir weeyna taayiri dawqalay waxa keenay sababtu way saxatay inantu wax kasta shandada ku jiraan inuu iska ilaaliyo iyay ahayd oo meesha wadada taalo iska ilaaliyo waxa ilaaliyo nidaamka ma uu garamarin uu jiray dadweynaha waxaan ka codsanaynaa runtii khayr mas'uuliyiin qaadan shandada bacda marada duuban sidii horeba la iskaga ilaalin jiray iska ilaaliyaan wadooyinka waaweyn meelaha go'an meelaha khatarta ku ah meelaha muxuu ahaay wadada kale ka soo galayso waxaan uga digaynaa inay darawaliintu mas'uuliyadda qaadaan oo iska ilaaliyaan dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu faraynaa oo ka codsanaynaa darawaliinta ninkii u bareera arintaas inuu dambigaas isagu leeyahay isku dilday lagu qaadi doono oo lagu qaadi doonin maxay ahaydey xeerkii nabadgelyada wadooyinka laakiin loo cuskan doono dambiyada ciqaabta waaweyn oo loo aqoonsan doono haddii la yiraahdo waxaan uga digaynaa dadku inay iska ilaaliyaan wixii meel yaala runtiiba waa dambi ku adag sharciga ciqaabta ku adag inanta yar way ciyaarayeen dumar ciyaar bay ahaayeen ciyaarayay meesha halkaas ay isku yimaadeen sida isku jiijidanayeen bay inanta yar ku dhax gabanay shandada dhexdeeda bir baa meesha ku dhax taala shandada dhexdeeda birtaas ayaa ilmaha wax yeeshay siday noo cadeeyeen dadweynihii markii meesha joogay ilmihii yaraa qayladeedii uun buu ku ogaaday baa leeyahay sidaan kiiska baadhis saraakiishan ila joogta ee kiiska soo baadhay say dhakhtarka iyo heladoodu noo cadeeyeen marka waxay ahayd oo anagu qaladka iminka saarayna runtii darawalka gaariga waday oo taxadar badan lahayn inuu ka baydhay inuu iska taagay inuu dhinac uga maray bay ahayd sida ay wadada u socotay mar hadduu shandad meel taala arkay ama bac meel taala arkay wax weyn ku jiraan dawaynu qofku iskaga baydhaa ama ka joogsada geesta kale taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland gaashaale Maxamed Ciga Cidheere waxa uu darawaliinta ugu digay inay ku socdaan xawaare dheereeya mid kale dadweynaha waxaan u sheegaynaa runtii ka cod in u sheegaynaa iyadana u sheegaynaa oo iyaduna aan digniin siinayna oo taraafikada runtii hawl badan bay samaysay in halka oromada xeeran baa laga sameeyay waxay ilaalinayaan oo u joogsanayaan wadooyinka calaamadaha baabuurka ay muxuu ahaa dhulka ku xaadhayaan
waddada rafroodkay samaynayaan xawaaraha dheeray samaynayaan halkaasi waxay ka qaban doonaan galbeedka inay wax ka qabtaan barigana waxaan darar weynaanu geynay iyagana waxaan uga digaynaa iyaguna intaa in leeg inay iyaguna samayn doonaan haddii la yiraahdo Salaaman Hebel Laambad warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.